daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga oo looga baratin inta ku gudbino TV-ga caalamiga ah Cable TV studios ku yaala magaalada London ee dalka Ingiriiska. Barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga sida caadada hadba waxaan ku soo qaadanaa qodobkaan isleenahay dadweynuhu waxay siinayaan. Inta badan barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga waxaan ku soo bandhignaa qodobka aan qaadanayno sida dadku u foodgareeyaan barnaamijka shaashada ku qoran ee bogga Facebook oo ku leeyahay. Kadibna dadweynaha ayaa u soo codeeya qodobka ugu wanaagsan oo ay isleeyihiin toddobaadkan in laga hadlo ayaa mudan. barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga qodobadii waxaa ka soo dhex baxay toddobaadkan damaashaadka Somaliland 18 May ee Somaliland damaashaadkaasi sanadkiiba mar ayaa la dhigaa guud ahaan dunida oo dhan baana laga dhigaa damaashaadkaasi waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay tan iyo markii burburtay dawladda Soomaaliya oo goonistaag ay ku dhawaaqday Somaliland damaashaadka ugu ballaaran ee laga dhigo daafaha caalamka dabcan waxaa lagu qiyaasaa in damaashaadkaasi uu yahay damaashaadka ugu weyn dhowr iyo 20 sano ee la soo dhaafay ee la qabto sanadkiiba mar taasoo lagu xuso goonistaagga Somaliland dabcan barnaamijka arrimahaas ayaan ku falanqayn doonaa haddii la yiraahdo annaga iyo aqoon-yahano reer Somaliland oo barnaamijka martiigu ah su'aalo arrimahaas ku saabsan in caawa wax iska weydiin doonaa damaashaadka kama maqna dabcan barnaamij kumbuleeda oo damaashaadka loogu talagalay ayaa nooga yimid ama aan ka sugaynaa stuudiyaha Cable TV ee magaalada Hargeysa dabcan damaashaadka sidoo uu dhacay guud ahaan daafaha caalamka uga dhacana waan idin ciyaari doonaa sidoo kale barnaamijka waxaan qodobada ku sii qaadan doonaa haddii la yiraahdo qaybaha dambe su'aalo ku saabsan arrimahaas barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga caaw waxa marti iigu ah dabcan xisbiyadii caaw macsuumin waad garan lahaanaysaan dad aqoon-yahano ah oo arrimahan aad ula socda dabcan aan filahayo inay wax badan ka og yihiin ayaan barnaamijkan ku soo casuumay taariikh ahaan iyo waliba siday ku timid 18 May iyo waliba xaaladda guud ee ka soo bilaabatay aqoon-yahanadaas ayaan caaw barnaamijka casuumaad uga dhigay garabkayga midig waxaa fadhiya Naasir Axmed Qaalib oo kamid ah jaaliyadda reer Somaliland ee ku nool magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska Naasir waa nin xogogaal ah arrimahaasna aad buu uga warqabaa dhawaan ayuu dalka ka soo noqday sidoo kale dhag garabkayga bidix waxaa fadhiya Maxamed Baashe Xaaji Xasan oo ah taariikh baare ururiyana taariikhda oo ku nool magaalada London ee dalka Ingiriiska labadiina baan iraahdo ku soo dhawaada barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga Maxamed adigaan kugu bilaabo taariikhda urursaaba la yiri marka taariikhdiina wax ka weydiiyo waa muhiim dabcan toddobaadkan waa toddobaadka damaashaadka 18 May oo dhammaan reer Somaliland meel kasta dunida guudkeeda ka joogaan ay u damaashaadayeen maalinta taariikhiga ku ah 18 May dabcan taariikh ahaan munaasabadaasi xagee bay ka soo askuntay sidee u soo askuntay bal adoo guud ahaan shacabka Soomaali weyn oo barnaamijka caawa ku daawanaya Somaliland kaliya ma daawanayso Soomaali weyn oo dhan baa daawanaysa sidii loo agaasimay sanadkan iyo waliba meesha ka soo askuntay bal sharaxaad naga sii duraan waad mahadsan tahay guud ahaana dadka kala duwan ee na daawanaya waanu salaamaynaa gaar ahaan dadka reer Somaliland meel kasta oo ay joogaan baa waxaanu leenahay hambalyo iyo bogaadin 24 guurada ka soo wareegatay markii gobonimada Somaliland dib loola soo noqday sanadkii 1991kii magaalada Burco ee ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed uu xoreeyay jamhuuriyaddaasi haddii aynu laba u kala qaadno oo aynu ku horeyno sida loo xusay maalintan ama loo xusaba run ahaantii waa sidaad carabka ku dhufatay dabaaldega ugu weyn ee ugu ballaaran ee maalin la xuso loo sameeyo intii dalweynihii Soomaaliya kala daadashadiisii ka dambeysay marka laga reebo labada ciidood ee Islaamka oo aynu ognahay in si weyn loo weyneeyo dadka Soomaalida iyo Somaliland laga weyneeyo laga xuso xafladaha ay munaasabadaha siyaasiga ah tana ugu mudan oo ugu dad badan oo ugu damaashaad badan walow anigu aan ka mid ahay dadka aad u dhaliila siyaabaha loo soo loo dabaaldego oo 18 May waa maalin xurriyadeed waa maalin taariikheed waa maalin ku suntan gobonimo iyo qarannimo marka alaaba waxa hareeya maalintaasi oo la xusaa oo la sameeyaa munaasabado ay hormuud ka yihiin dad dhalinyaro ah iyo haween oo markaasi music iyo heeso xitaa mararka qaarkood heeso wadaniga baan jacayl ayaa la soo bandhigaa taasi oo xoogaa weydaysa sida maalinta loo weyneeyay loogu soo baxay ee loo qurxiyo oo anigu waxaan door bidi lahaa in xoog la saaro lagama maarmo fan iyo suugaan
oo dadku habeenkaa inay iska nafisaan oo heesahaas iyo waxaa la isxasuusiyo gaar ahaan kuwa wadaniga ah laakiin waxay ahayd in xoogga la saaro oo laga sheekeeyo taariikhda maalintaasi ay leedahay halka ay ka timi waxa ay ku suntan tahay dhaqanka ummadda maalintaa ku dhaadanaysa dhaqankeeda afkeeda waayaheeda nolosheeda la qiimeeyo oo laga wada hadlo oo laga doodo oo la adoroso in loo badiyaabay ahayd damaashaadkiiyo dabaaldega halka durbaan iyo isu soo baxayda iyo sidii kacaankii 22 Oktoobar maalintii la xusi jiray oo kale calamo intoo la soo qaato oo la ciyaaro oo la dhaaniso oo suuqyada la maro ama meel la kireysto laga tunto waxay ahayd in lagu daro oo aan loo dayma la'aanin waxyaabaha aan carabka ku dhuftay ee taariikhda iyo afka iyo dhaqanka iyo suugaanta iyo nolosha dadku ay ka midka yihiin ayaa muhiim ahaan lahaa mararka qaarkood waxaaba dhacday in meelaha qaar rabshadi ka bilaabanto oo dhalinyaradu intoo si wacan loo jihayn waayo marka ay meeshii la kireeyay dhalinyaradii kala bataan in halka ay mararka qaarkood dhibaato ka timaadaba dhacda halkii wax laga faa'iidi lahaa bariyahan dambe waxa iyada qudheeda in carabka lagu dhufto habboon in la tilmaamo in laga dhigay maalin ganacsi maalin lagu talagalo in dadka lagu soo jiito heeso iyo sida aan ku sheegay tumasho noocaas si dad badan u soo galaan oo lacag looga helo waayo waxa lagu soo saaraa lacag la doonayo markaa in ama mashaariic lagu fuliyo ama mararka qaar si kale loo isticmaalo oo qaldan arinta qudheedu tamnaanshiyaheeda ayay leedahay oo in maalintan maalin ahaanteeda loo tahay shay waliba wuxuu leeyahay qiimeyn shayga hadii qiimeyntiisa laga badiyo ama laga nisqaamiyo waxa way xumaatay waxa la yiraahdaa ubuxu hadii uu biyo badan la waraabiyo oo uu dharqado wuu ku dhintaa marka anigu waxaan oran lahaa maalintan qiimaheeda hala siiyo soo koobay sida ay ku timid iyo munaasabada sida ay ku timi maxay tahay 18 May waa taariikh aad u gundheer oo fog oo 10,000 oo sanadood salka ku haysa oo ka soo jeeda intii ummadani ba abuurantay halgamadii kala duwanaa ee ummadani ay soo gashay xilligii aynu ka soo qaadano gumaystuhu uu soo gelayay arlada Soomaalida gaar ahaan Somaliland oo kale markii Ingiriisku yimi qarnigii 19aad uu qabsaday halgankii bilaabmay ee shacabku ee ahaa berberi wax go' lagu qaado ka weyn ka bilaabmayay markii odayadu berbera kula shireen Ingiriiska saanta heshiiska ku kala saxiixdeen ilaa iyo intii markii dambe halgankii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo kale daraawiishta oo kale kuwii kasii dambeeyay Sheekh Bashiir iyo Faarax Omar oo kale axsaabtii siyaasiga ahayd ee SNL iyo USP iyo NUF ahayd gobonimada dhalisay ee 60kii soo gaadhay ilaa iyo markii dambe saruugii weynaa ee yimi ee ku dacaldabayay midnimadii Soomaalidu ay gaadhay ee labadii gobol ee waqooyi iyo koonfur hadii si kale loo yiraahdo Soomaalida Talyaanigu gumaysanayay iyo Soomaalida Ingiriisku gumaysanayay 60kii midoobeen tabashadii halka ka soo baxday iyo maxay ahayd tooy dhibaatooyinkii dhacay hibashooyinkii dhacay hirtaanyadii dhacday markii dambe ee taliskii Maxamed Siyaad Barre uu talada qabtay iyo kali talisnimadii aasaaskii SNM ayaa yimi oo markaa isna halgan kale oo nooc cusub oo shacbi ahaa oo ahaa kii maalintan keenay ee Burco 18 May 1991 lagaga dhawaaqay markii SNM ay dalka la xoreeyay ee Maxamed Siyaad Barre dhacay waxa dhacday in SNM ay isugu yeedhay dadkii ku noolaa gobolada waqooyiga reer waqooyiga dadkii loo yaqaanay ee labada u qaybsanaa qayb SNM taageersan iyo qayb ka horjeeda ayaa Burco la isugu yeedhay SNM waxay samaysay oo ciyaartay door taariikhi ah oo ay jabhaduhu samaynin oo ah in la saamaxo oo wixii dhacay laga wada hadlo laga heshiiyo aan laga maarmin in wax la wada yeesho taasaa keentay markaa in 18 May iyadoo loo dhan yahay oo aan loo kala maqnayn beelihii gobolada waqooyi aanay u kala maqnayn magaalada Burco 18 May ay isugu yimaadeen oo loo dhamaa nuur iyo naaleeyaba loo wada joogay oo markaa laga dhawaaqay gooni isku taaga waxa ku xigay Boorame 93kii oo SNM ay ku wareejisay sidii dastuurkeeda ku yaalay taladii shacabka markii Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal Allah yarxama halkan madaxweynihii ugu horeeyay waxa loo doortay Cabdiraxmaan أحمد علي عبد الرحمن تور الله يرحمه كحجينا وحلو دكتور حسن عيسى جامع كدبنا صدق يا سجاشن كي وح مركي اسمه ما يسكوري كسي مامو كي يطلع شعب كوري كسي الله يرحمه محمد حاج إبراهيم عقال باللودي بي وحاول نقضي كحجين عبد الرحمن أو علي أو مانترنول وحادنا مركي تنبه سنا عبد الرحمن كلو ريجيو قبطي هلك مدحوينه كحجين كظاهر ريالك هنا وها مدحوينه صدق هذه جمهورية الصومالي لان oo maalin berigii dhaweeyay 5 sano ka hor xilka wareejiyay
oo Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo doorashadii ay wada galeen 2010kii ku wareejiyay halgankaas buu ahaa dheer soo socday waayihiisa lahaa dhibaatooyinkiisa lahaa dhowrtadiisa lahaa wanaagyada iyo xumaanaha iyo jabitaanada iyo guulaha intaba lahaa buu ahaa himilooyinka iyo higsiyada iyo ujeedooyinka kala duwan balaha ayuu ahaayo SNM ay markii ugu dambeyntii ku xaqiijisay gooni isutaaga Soomaaliland iyadoo oo markaasi ka dhaxaysiisay dadkii wada lahaa gobolka waxa la yiraahdaa guusha cid kasta oo halgan gashaa guusha ay gaadhiyo midhaha ka soo baxa waxa wada yeesha cid kasta oo guushaasi iyo midhahaasi halka ay laga aqbaalayo ama laga beerayo wada degan kii ka horjeeday iyo kii la socday labadaba waxaana la yiraahdaa guushu ma dhimato guul daraduna ma dhamaato 18 May saasay ku timi aad baa maasta waayahay aan ku imaado waa ku dari doontaa hadii la yiraahdo laakiin su'aal xogaa taas la mid baan ku weydiin rabaa hadii la yiraahdo Naasir Allahow damaashaadka xukuumadda iyo shacabka reer Soomaaliland ay u sameeyaan maalintan aadka ugu weyn ee 18 May oo sanad walba la qabto muxuu sanadkan haddaad xasuusto uga gedisan yahay sanadihii ka horreeyay ayaad isleedahay maadaama ay 24 sano jirsatay oo 24 sano arrintan la soo qabanay horta intii hore aan yar raacsan soo dhaw yani reer Soomaaliland aragtida aan ka qabo siday u agaasimeen ama caalamka gudaha iyo dibadda ay uga dhacay damaashaadka 18 May haddaan yar ku soo koobo waxay sida aad iyo aad ay sanadkan loogu qabto lagu dabaaldego Soomaaliland iyadoo oo la soo dad loo kala harin nin yar iyo nin weynba ama qof weynba sida shaqada TV ga aragnay waxaad aragtay in badan in dadku soo xuseeyeen in aad u wanaagsan runtii oo si habsami leh dalka oo dhan iyo dibadiisaba ay uga dhacday xuska 18 May taas waa tan sida u aragtay haddaba waxaan doonay halka inaan yadu istaago waayo muxuu sanadkani 2015 kaga duwan yahay ayaa meesha ku jirta moogtay marka waxa macnaheedu waa kan wuxuu kaga duwan kuwii hore laba siyaalood baan kaaga sii ayaan doonay inuu sheego horta waxaa jira duruufo siyaasadeed oo soo wajahday intan imika u dambeysay runtii oo la gudboonaatay waqtigii doorashooyinka iyo waqtigan ma garanaysaa dabaaldegu isku soo dhawaadeen duruufaha siyaasadeed waxaan kala saari doonaa saddex qaybood koowaad waxaan ku qiyaasi doonaa waxaan ku waa duruufaha ku xeeran doorashada iyo hawliyeeda taas waa mid talabaad waxa weyn loo arkay ama dad badan had baryahan ka sheekeynaya ama dee wararka baan uga helayna ama dee aynu haddaynu aan laas garana ku maqlayn waxaa jirta arrimo xagga Soomaaliya ka socda runtii oo pressure ama daqad yar ka jira xagga qudhiis u yaali ta saddexaad waxay noqonaysaa iyadoo ay xagga beesha caalamka ah oo dareenka beesha caalamka ayaa qudhiistan soo dhex galay marka duwanaansho saddex qaybood ay ka duwan tahay haddaan si yar dul istaago ama si kala sharxo sidaas oo istaagi lahaayeen doorashada duruufaha gudaha iyo taas si habsami ah oo xilsami ah ayaa loo gutay loo dhameeyay taas halkaas ku dhacday taas to Soomaaliya ama gudashada Soomaaliya nooga imanaysa ama Soomaaliya nooga imanaysa tan yar in yar ka yar eego runtii taas duruufo badan oo kala duwan bay xamaarsatay waa siyaasad dibadeed runtii waa duruufo la xiriiri kara ma garanaysa arrimaha Soomaaliya iyo higsiga Soomaaliya oo kala ah iyo Somaliland si isku qaadi karayaan wax bood meesha ku jira noqonaya runtii marka taasna meesha taala iyaduna waa duruufaad la inagu soo wajah waqtigan xaadirka tan beesha caalamka hadda ayaa timid beesha caalamku iyo runtii dawaanu laba siyaal inoo kala shaqeeyaan Soomaaliya iyo Soomaaliya oo waxay leedahay two way track ay kala isticmaalaan hadda waxaad moodaa two way track imka inay yar baxdayo si one way track ay laba dhanba ula dhaqmayaan oo aniga marka soo yar koob ma garanaysa taas oo runtii aad moodaa inay yar la xajalaanayaan Soomaaliya la jaan qaado higsiga 2016 taas waa caalamku inay uga wada beesha caalamka wato haddaba haddaan taas oo dhan marka la isku soo daro haddaba ama la soo koobo sida doorashadu u dhacday Soomaaliland waqtigan xaadirka iyadoo waxaas oo dhan la tixraacayo waxay noqotay inay muujiyaan shacabka Soomaaliland iyo xukuumaddeedba cudud midaysan oo ay ku muujiyaan qarannimada iyo madaxbannaanimada Soomaaliland 18 May runtii ma soo koobo taas waxay keentay marka in Soomaaliland isku dubnaato oo xaflad wanaagsan ama damaashaad wanaagsan oo tii hore ama kuwii hore soo jiray ka meeqaam sareeya oo ka aragti wanaagsan oo ka fikrad wanaagsan oo isku dubnihi ama meesha ka dhalato aad baa maastay dabcan annaana waan ka sugayaa muuqaal haddii la yiraahdo oo damaashaadkii ku saabsan haddii uu maqlahay annaan inta aanan u gudbin maxamed baashe bal nala daawada sidii uu u dhacay damaashaadkii 18 May loogu dabaaldegayay oo dhammaan xukuumad iyo shacabka reer Soomaaliland ay maaragtay u dabaaldegayeen waxba ka dhiman baan filayaa wali dib baan ugu soo noqon doonaa haddii la yiraahdo muuqaalkaasna waa idin tusi doonaa damaashaadkii 18 May oo dal iyo dabadba ka dhacay dabcan aan ku soo noqdo madasha baash maxamed baashe adigaan ku imaado goonistoga Soomaaliland
ama dib loo noqoshada qarannimada Somaliland waa 24 jirsatay waa rubac qarni xilli ku dhow inkasta oo aysan wali aqoonsi beesha caalamka ay sahelin haddana waxaa muuqata markaad aragto dadka reer Somaliland iyo siyaasiyiintooduba in ay ayagu is aqoonsadeen waxyaabaha ugu weyn oo mara dhalin karana taasaa ka mid ah in dadka uu ku niyadsan yahay goon istaagooda 18 May iyo aqoonsigooda dabcan dhanka kale marka la fiiriyo maadaama aad taariikh tahay oo arrimahan su'aalahan oo kale adiga aad muhiim u tahay maxaa hortaagan baad is leedahay inay ragaan noqoto dhanka beesha caalamka aqoonsiga maadaama shacabkii Somaliland oo dhan ay ayagu iskooda soo aqoonsadeen oo damaashaadiyada aad arkay sidoo oo adduunka oo dhan laga dhigayo ay sameynayaan aad baad u mahadsan tahay run ahaantii xagga gudaha marka la eego Somaliland wax badan baa u qabsoomay 24 sanadood aynu imika ognahay in jiritaankeedu ku abtirsanayo halkii markii la yimid dalku sidoo ahaa iyo halka ay maanta marayso marka la isbarbar dhigo waa kaafiye kala dheeri waxba taa waynu ku noqon doonaa markay baahideedu timaado inuu hoos ku sii dhaadhacno laakiin su'aashan ah dhinaca aqoonsiga waxyaabaha hortaagan run ahaantii waxaa la yiraahdaa siyaasadda arrimaha guduhu waxay had iyo gooraale muraayad u tahay siyaasadda arrimaha dibadda siyaasadda si kale haddaynu u dhahno siyaasadda arrimaha gudaha ayaa abuurta samaysa aqoonsiga loo baahan yahay waxay abuurtaa fursadihii bay abuurtaa istiraatiijiyadii bay samaysaa waxaan u malaynayaa anigu Somaliland taasaa ka maqan weli istiraatiijiyad cad oo ku waajahan sidii beesha caalamka loo kasban lahaa ee loo abuuri lahaa fursadihii lagu aqoonsan lahaa Somaliland lama sameyn haddii la isku dayayna si wax ku ool la isugu madayn ilaa imika de facto si kale haddaynu u dhinaahno aqoonsi diblomaasiyadeed Somaliland way heshay oo way haysataa oo beesha caalamka way wada xiriiraan oo way la macaamishaa hadday noqoto darisyada hadday noqoto qaaradaha kale ee Yurub iyo Afrikada kale iyo Asia iyo intaba xafiisyaa jira iyo macaamilaad siyaasad diblomaasiya oo xagaas waa mid aynu ogsoonahay meesha wax ka xun yihiin waa arrimaha gudaha baan u malaynayaa anigu oo waxaan si fiican loo dhammaystirin arrimihii abuuri lahaa fursadihii abuuri lahaa in Somaliland lagu aqoonsado hadday noqoto dhinaca maamul wanaaga hadday noqoto dhinaca dadka wadanka ku wada nool iyo qanaacadiisa oo waxaynu ognahay meelaha qaar in khilaafiyo gaamuray ka jiraan sida bariga oo kale gobolka Sool oo kale marka ictiraafka la soo qaado waa arrin muhiim oo biya kama dhibcaana oo kulliba taban marka la eego dadku inay waxanay wada leeyihiin ay wada doonayaan weel loo wada weelayo meel la isku keenaba wacan oo waa loopholes waa goldolooyin meelaha laga soo gelayo Somaliland bay kamid tahay dhinaca ictiraafka iyo midnimo iyo maxay hayto inay beesha caalamka taqwad ku yeelato taasi waa kamid dhinaca kale waxa muhiim ah oo in aan isha laga leeyahay tahay jiritaanka Soomaaliya iyo Somaliland wax badan baa iskaga xiran ictiraafkan Somaliland raadinaysa wax badan waxay ku xiran yihiin Soomaaliya inta Soomaaliya kala daadsan tahay ay dhibaato jirto weyniyay cid laga hadlo oo muhiim aanay jirin wali halkaa waxba ku linqaasan oo ku maqan oo beesha caalamku imika Soomaaliya jamhuuriyaddii Soomaaliya waxay u aqoonsan tahay labadii gobol ee 60kii midnimada gaaray ee waqooyigii iyo koonfurtii marka la eego xiriirka caalamiga ah iyo haddii ay haydankeeda leeyahay habmaamuuskiisa Soomaaliya loo aqoonsan yahay wali Somaliland lama aqoonsan waa la isku xirayaa wax badan baa iskaga jira sidii markaa wadamadii kala go'ay oo kale ee Czech Republic iyo Czechoslovakia oo kale 1991 markay kala go'ayeen Czech iyo Slovakia heshiiyay iyaga wax isla gartay iyaga beesha caalamka u bandhigay deedna waa la eegay deedna waa laga ogolaaday inay laba wadan oo kala madax banaan noqdaan waxaynu soo qaadan karaa wadamadii midowga Soviet oo kala daatay waxaynu soo qaadan karaa Yugoslavia oo kale waxaynu soo qaadan karaa ugu dambeeyay Ethiopia iyo Eritrea oo kale waxaynu soo qaadan karaa South Sudan iyo Sudan oo kale wadamada nooca u kala go'aya
beesha caalamku had iyo gooraale waxay quudaraysaa ay sugtaa in iyaga xaggooda waxay isla ogol yihiin laga soo bisleeyo ay la yimaadaan si markaa shaambada loogu dhufto taasina waa ka mid caqabadaha hortaagan ictiraafka Somaliland ay beesha caalamka inay siiso ay doonayso labada arrimood ee gudaha iyo dibadda oo isku lamaan ayaa waxay keenayaan hadii iyo arrimo kale oo dhinacyada aflaaqaha ka laalaada waxa ay keenayaan in uu ribado oo raago aqoonsigaasi laakiin anigu waxaan aaminsanahay haddii dadka gudaha jooga iyo Somaliland riski ay iyagu is aqoonsadaan naftooda aqoonsadaan oo awoodooda aqoonsadaan oo dhulkooda iyo dhaqaalahooda iyo dhaqankooda iyo waxay haystaan aqoonsadaan oo hagaajistaan in ictiraafka dibaddu uu sahlan yahay in la helo aad baa maasta waa yahay aan ku imaado Naasir adiga aan ku imaado Naasir dabcan Somaliland goon istaaga iyo dib u noqoshada qarannimadooda waxay ku dhawaaqday sanadkii 1991 18 May-geedii waxaa laga joogaa 24 sano haddaba maxaa faa'iido ama khasaare oo laga dhaxlay arintaasi haddii Somaliland goon istaageeda ay ku guuleysato maxay ka macaashi kartaa haddii ay ku guuleysan weydana maxaa khasaaraha ugu jira islada halkii hore dib aan ugu yeerno ka raadiga ictiraafka Somaliland waxa hortaagan horta laba waji bay ka leedahay ictiraafka Somaliland mid waa mid watan gudaha Somaliland gudahooda oo markay gurashiyeen shirkadda markii laga bilaabay ilaa kii boorami ilaa tii dowladda lagu soo dhisay kaasoo ka ictiraafka gudaha ka dhashay waana kan imka dabaaldegayna runtii kaasoo ximka jiro waaqiciya maxaa dabay naga maqan ictiraafka beesha caalamka oo ay Somaliland raadinaysa ictiraafka beesha caalamku laba jiho ka leeyahay jiho waxa weeye cid adiga iyo cid ay khusaysan ka wada hadashaan taasna waxa weeye Soomaaliya iyo Somaliland inay ka wada hadlaan marka hore taas waa tiimka dowladda mudane Maxamed Axmed Siiraanyo oo bilaabay imka muddo 2 sano qiyaastii goorta hadana khaldanayn ee in Soomaaliya la wada hadlo oo laga hadlo marka wada hadalkaasi waxa asaaskiisu yahay in laba dowladood oo walaalo oo daris ah loo noqdo hadafka Soomaaliya waa ka maqnaysa ictiraafka Somaliland qudhiisu ma Soomaaliya kale ictiraaftoon soo runtii marka laga eego hadii sida kale loo dhigo Soomaaliya qudhiid ictiraaf ay doonaysaa wali dowlad dhameystiran maaha qaran wada dhisan maaha waa qaran imanka la ictiraafay siyaasiyan political la ictiraafay laakiin aan ajandihii iyo hadafkii garanaysaa dowladnimada ama sovereignty-ga ama madaxbannaanida taama aan wali gaadhin marka waxaad moodaa imka aan goran karaa anigu labadan shacabkan Soomaaliya iyo shacabkan Somaliland waa laba shacab isku baahan baahida isku baahan yihiin waxay keentay ay Somaliland jeceshahay labadooda inay ictiraafaan horta gudahooda ictiraafkaas hadduu saagu yimaado waa soo ugu fudud ee magac iyo maamuus laba dhacmo ay ku helayaan tahdil waad waxa dhati caalamka waa istabka labaad marka ku xigto weeyaan marka waxa weeye waxa imanaysa wax la intervention ama soo dhaxgal oo caalamku soo dhaxgalo dhaxgalkaas muxuu ka bilaabay waa garnaq marka tawatal isku garnaqsan doona taas waa marka marxalad dambe taas ka san kaga baxay moogtay tan kale sidoo kale aad leedahay ilaa 19 qaatay Somaliland marka hadii su'aasha hadaan ugu noqdo maxaa geherga weydo maxaa labada uga habboon Soomaaliya su'aasha khasaare gajiha horta goon istaaga Somaliland khasaare badan lagu jiro runtii waayo waxa weeye marka loo compare garay ama loo miisaamo xorriyadii 60kii markii la qaato Somaliland xorriyad fudud oo bila tacab oo bila hawla ayuu ahaa oo aan marka qiim culus ama miisaankiisa aan runtii lahayn garanaysa kan hadaba 18 wuxuu ku fadhiyay waxa weeye waa halgan baa lagu soo galay waxa dad iyo dunya maal baa lagu kharash gareeyay marka qiimo culus oo kii hore ayuu leeyahay faa'iido marka ugu weyn waa taa waxa weeye ku adkayso Soomaaliya ku adkaysanayso jiritaankeeda iyo gobonnimadeeda iyo xorriyadeeda 18 May taas oo ka aasaasan moogtay taas marka waxa weeye waa taa hadaba hadii ay dhici weydo horta hadii dhici weydo Soomaaliya ma ictiraafsan inay dhici weydo ictiraafka inuu imanay iyo ictiraaf iyo Somaliland rumaysan tahay waqtiga ayaa la isku hayay mudawaan baa soo dheeraanaya runtii laakiin jiritaanka iyo ictiraafkeedu in meesha imanayo waa mid taala oo si hore marka aan soo hordhayo sheegay waxa weeye labada wajiho inay mid ku timaado taa in labada wadan ama labada shacab ee walaalihi ay u heshiiyaan dabata isku afkartaan taas marka taariikh ahaan waa sidii markii maxamed soo sheegay caalamku dhamayso ka soo dhacday wax ku Soomaaliland ku cusub maaha moogtay waxa wadada inagu dhawaa Suudaan ba kamid ah والبسان دوام قالوا إثيوبيا وحاجة كلامي ده هاي إريتريا كلامي ده هاي تشيك ريبابليك كلامي ده قالوا نقضي يعني استيمور إياه إندونيسيا قالوا نقضي مركز تدرك متوى الأجريمنت وحلا هذا وعتاني كان دولة من حمينا من حنا سيال كم دحية أبي لاوضي إن كل ما عطوا تحديد عويد واتي عرب مركز سوى تي شرعي يلو هي قوانين بس كنت تكسني مركز يعني عويد كسب سمان لازمتي
ما ير أمن سنة بكتة لقى هو درانو تاسك يكون أفلها waxaad dul istaagtaa Somaliland su'aasha si ahayd tii itraafka dib ugu noqotay waxaad dul istaagtaa Somaliland waa 25 jir ku dhowdahay 4 sano hadda dabaaldegan ku jirta ay goonistaag dabcan intii ay goonistaag ku jirtay maxaa faa'iido maxaa khasaara hadii goonistaag ay weydo maxaa faa'iido maxaa khasaara maxaa macaasho ka imaanaya halkaas okay horta faa'iido Soomaaliya waxay ka faa'iido saddex shay oo muhiim ah waxay ka faa'iido wax la yiraahdo dawladnimo وامد waxay ka faa'iido wax la qarax madax banaan oo qaran madax banaan bixishay waxay ka faa'iiday dadkeedii oo isku tashaday oo isku kalsoonaan isaaminay saddexdaas shay waa faa'iido weyn in ma horno helin statement May 1999 dib loo soo noqoshadii xorriyadeeda 1999 ay heshay ee gaadhi weeyaan hadda hadii hirgeli weydo hadii hirgeli hore soo carbaano isfaday himilada ugu jirta Soomaaliya inay hirgelin runtii marka waxta ay aaminsan runtii ma hadii aan hirgelin laakiin oo de waxa badul focus soo dhacan ma garanaysa wajiga kale ayaan kartaa aad waa maasna hadii aan su'aasha ka anoo soo koobiya daqiiqad gooni sutaaga Somaliland shacabka Somaliland uu ku tanaaday kuma qasaarin wuu ku liibaanay waxa uu kaga raystay wax badan waxaanu ku qabsaday wax badan hadii ay bahayd mayo waxa soo baxay oo abuurmay wax dadka reer Somaliland ay inda ugu noqdeen gobolka iyo Soomaalida kaleba oo ah tala wadaagnimo wada tashi isu tanaasul iyo hadii ay bahayd mayo geedi socod nabadeed oo la dhisayo la yeegleelayo qaran markaasi hay'adihiisii iyo hay'adkiisii dawladnimo leh oo korayo kobcaya oo maalinba heer soo joogay oo ka maqan walaalahoodii ay kala baxeen ee Soomaaliya jiiraanka ah u dhow inta doorasho ee dimuqraadiga ee madaxweyne leh ee baarlamaan leh ee wakiilo hoose iyo golo deegaan leh ee soo qabsamay baynu ognahay dastuurka loo footeeyay la qaatay baynu ognahay yacni geedi socodkaasi waa guulaha ugu waaweyn ee laga faa'iiday gooni isku taaga maanta la arkayo ee la taabanayo ee soconayo korayo ee nimban dhagaxa iyo qoriga ninka ka dambeeya uu sii dhiibayo faa'iido weyn waa taa dhinaca waan oran karaa wax badan oo lagu guuldareystay baa jira waa run guuldarooyin badan baa jira oo maamul wanaagu ka mid yahay oo cadaaladdu ka mid tahay oo ay ka mid tahay hadii ay bahay idmayo ka wada muuqashada saami qaybsiga dadka gobolka wada degan dadka jamhuuriyadda wada leh in saami qaybsigu wixii shalay koonfur reer waqooyigu kaga cabanayay ee ku haaraanayay ku diidayay inay Somaliland ka muuqataa waa boog dulmiga hadii ninka kugu sameeyay hadii mid kula jooga kugu sameeyo waa dulmi laba macne ma kala laha marka in wax ka qabiyo yihiin Somaliland la shaki kuma jiro oo guuldarooyin jireen laakiin mar walba waxa badan guusha badan libinta badan meelahaasna waxaan rajaynaynaa inuu ku maxay haytooy ku boorinaynaa hadba inta talada iyo midida daabka haysata in wax laga qabto la dhugto aan la dhayalsan aad baa maasta aad ku soo noqonaa Nasr ku soo noqonaa waxaan dib ku celinayaa stuudiyaha Home Cable TV magaalada Hargeysa sidoo u dhacay damaashaadkii 18 May oo adduunka dhan ka dhacay iyo wariye Bosch taasoo wanaagsan Taladii
gacmaha isqabsada alloo ku gargaar kayga nabato dadkana garasiilibiyo gobanimo dadkana garasiilibiyo gobanimo alloo ku gargaar kayga nabato dadkana garasiilibiyo gobanimo dadkana garasiilibiyo gobanimo haddaan loo gu'in godkana loo gelin haddaan kuman geesi u mudan geerida haddaan gobanimo gutiga loo xidhaa miyaan guralayn midhaa soo go'ay miyaan guralayn midhaa soo go'ay haddaan loo gu'in godkana loo gelin haddaan kuman geesi u mudan geerida haddaan gobanimo gutiga loo xidhaa miyaan guralayn midhaa soo go'ay miyaan guralayn midhaa soo go'ay alloo ku gargaar kayga nabato waxay ahayd heestii wadaniga ahayd ee kooxda xidigaha waxaan filahayaa inay ahayd sanadkan sanadkii ka horreeyay heestaas ay qaadeen laakiin barnaamijkiina weli waa noo soo socdaa sidii damaashaadku u dhacay dhanka farsamada ayaan ka sugaynaa haddii alla yiraahdo dabcan barnaamijkeennii ayaan kusii soconaynaa maxamed baashe adaan kuu dhiibahaya haddii alla yiraahdo waa tahay inta damaashaadka aan gaarayn haddii alla yiraahdo caawa janis baan u helay sababtoo ah aqoon-yahano reer somalilaana oo su-aalaha noocaana inay bulshada la wadaagaan soomaali oo dhan iyo reer somalilanba very waxay ii tahay aad baan ugu faraxsanahay markii hore doodaha waxaan qaban jiray xisbiga somalilan ayagaa isku mashquulsanaa marka siyaasiyiin ama aqoon-yahano ka madax bannaan in su-aalaha muhiimka aan weydiiyo fursad bay ii tahay aad baan mahadsantiin dabcan somalilan waxay xorriyaddeeda qaateen mustacmarka ingiriiska qaateen 26 juun sanadkii 1960 lana midoobeen soomaalidii koonfurta oo talyaanigu markaas ka talinayay dib loo noqoshada iyo gooni istaagga somalilan waxay ku dhawaaqeen 18 May sanadkii 1991 oo maanta loo dabaaldegaya sanadkii 24aad labadaas taariikhood marka aad isbarbar dhigto taariikhyahan baa tahay keebaa reer somalilan la weyn waxaad u jeedaa baan filayaa 26 juun iyo 18 May haddaan saxanahay runtii waa laba munaasabadood oo labaduba mid waliba ahmiyaddeeda leedahay 26 juun waxay ku suntan tahay maalintii somalilan ay xornimadeeda ka qaadatay gumaysigii ingiriiska oo in ka badan dhowr iyo 80 sannadood xukumayay 18 Mayna markii xornimadaasi dhacantay ee ay foolhallowday baan oran karaa foolhallow baan isticmaalayaa foolhallow kelmadda foolhallow ee ay foolhallowday midnimadu ma xumayn caatifad iyo jibbo wanaagsan bay ahayd oo shacbiga reer somalilan dabada ka riixayeen laba nin ayaa xisaabtii siyaasadda ee waagaa berigaa midnimadaa yidhi warinoo yarkaadiya mid wuxuu ahaa michael maryama oo xisbigii NUF hogaaminayay oo yidhi 10 sannadood inoo kaadiya ingiriisku hayna tababaro oo maamulka iyo dowladnimada iyo habraaceeda sida loo agaasimo aan ka baranay ina suga iyagaba talyaani baa 10 sannadood tababarayay oo maamul gaarsiinayay shacabku way ka diideen waxay yiraahdeen maska daba socdiyo Michael iska eeg maska daba socdiyo Michael iska eeg ninka kale wuxuu ahaa Ali Garaad Jaamac oo USB isna hogaaminayay isna wuxuu yidhi 6 bilood
aan ka boganno dowladnimadeenna oo aynu wax dhisanna inoo yarkaadiya deedna waxaa lagu yidhi laa wallaahi laa yaa garaad laa yaa garaad baa lagu yidhi dadka intiisa kale waxay yidhaahdeen xornimada qaadashadeeda 26 juun iyo midnimada koonfureed waa hal isir oo qura waa hal iyo nirigteed waa uliya diirkeed lama kala reebi karo dhinaca marka laga eego shacabku maalinta ha degdego oo de waxaa loo baahnaa waxa laga midoobaya in laga wada hadlo in laba dawladood baa la ahaayee sidee baa dawladda la dhisayaa ay noqonaysaa ee lagu midoobayaa dastuurku muxuu noqonayaa sidee loo cashuuraha loo bixinayaa sidee mushaharooyinka shaqaalaha loo bixinayaa sidee darajooyinka loo qaybsanayaa sidee saamiyada loo qaybsanayaa waxaasoo dhami ayaa laga booday oo waa qaladaadkii la galo midnimo sal adag leh may ahayn laakiin caadifad iyo jibbo wanaagsan dadkii markaana lama eedayn karo ayay wateen laakiin markii lagu takrifalay ee la faraxumeeyey ee abaalkii dadkaasi galeen la gaday ee iska daa Soomaali kale oo maqnayd oo hiyigu hayo la raadiyay labadii midnimada iyo midowga galay ay cuneen isdiirteen aakhire isla daadegeen ayay 18 May ka dhalatay taasay soo dhicinaysay taasay saxaysay taasay hagaajinaysay in la qaldamay oo midnimada degdeg ahayd aan laga fiirsan caadifadu keentay qalad ahayd bay 18 May ka jawaabtay waa jawaabtii labada maalmood saasay qiimo u yeelanayaano dadka alaho waa laba taariikhood oo isa suran oo waxna wadaaga waxna u kala gaar yihiin oo sidaad imika ba aragto dadka waxa ku weyn 18 May waynu ka marxaati kacayna waaqicay inoo sheegayba dee oo 26 Juun lama yaala xuso anigu taa waxaan u arkaa arrin taban oo in 26 Juun la weyneeyo oo la xuso oo la qiimeeyo oo siday ahayd loo qiimeeyo ayaan aaminsanahay 18 Mayna sideedan iyo ka wacanba loo sii sameeyo yaan labada maalmood la kala fadilino taa aan la ilaawin ayaan kulliba aaminsanahay labada maalmood dadka leh waa wax dadka ka wada dhaxeeya dadkii loo yaqaanay reer waqooyi koonfur Soomaaliya markay tageen loo bixiyay qaldaamiinta weeye marka labada maalmoodba aniga xaggayga qiimahaas ay kala yihiin laakiin waa ma muuqataa in mid aad laakiin way muuqataa in 18 May ay haraysay ama ay barabixisayba hadaynu afka cilmiga ah ee chemistry-ga kala isticmaalno inay barabixisay sidii marka sinkiga iyo biyaha la isku daro oxygen u bixi jirtay ama hydrogen ay u barabixisay 18 May 26 Juun waaqic ay noo sheegaya muran iyo dood badan ma leh way ma su'aashaas koobana ku daraysaa hay soo dhaw su'aashu waxay ahayd laba taariikhood 18 May 26 Juun teeba bulshada Soomaaliyeed ku weyn Somaliland ama aad u qadariya 26 Juun horta marka xorriyadda la qaatay weeyaan bulshada Soomaaliya ama dad Soomaaliyeed af Soomaaliga hadla xorriyadda oo qaateen mustacmar meesta hadaba xorriyaddaas 26 Juun iyada maqaamkeedii waxa hoos u dhigay midowgii 1 July isku darsigii labada Soomaalida laanta iyo Soomaalidii Somaliland ama Somali Italia oo markii dambe noqotay 1 July marka horta maqaamkeedii hoos ugu dhacay runtii xuskeedii iyo weyninteedii runtii taas isku darkaas marka hadaf uu lahaa taargetna uu lahaa ujeedadu waxay ahayd markaas horta waxaan la baxnay markaas Somali Republic ee la bixiyay oo labadii magac ka tagnay Somaliland magaciisa Somaliland ka tagtay Soomaali magaceedu ka tagtay dabta markii ay unification oo dhacay waxaan noqonay Somali Republic oo waqtiga go'aan maalay waqti ku jirnay durfo bakaran soo dhaxkalaan labada wadan ta kale waxa weeye soo raacda taas hadafka laga lahaa midnimadaas muxuu ahaa weeyaan hadafkaas midnimada laga lahaa wuxuu ahaa Soomaali weyn waxa la yiraahdo in shanta Soomaaliyeed la mideeyo la isku keeno calankaas la soo horgeeyo taasna iyaduna way fashilantay oo taariikh fashilantay ayay noqotay taas hadda waxay keentay markaa maxay guddoonsay Somaliland in Somaliland ay 18 May xorriyadeedu la soo noqoto taas oo waliba ay si hor aan u qaadanay si ka culus ay u qaatay oo iyada dhiig iyo maal iyo waqti iyo naf iyo waxba kaga baxeen marka labadii dal isku qiyaaso ama la isku miisaamo 26 Juun iyo 18 May de hadda imika waxa miisaanka weyn saaran ama cudawaan la iskale waa 18 May aad baa maastaa adnaan in la socotaan filahayaa dabcan damaashaadkii waa dibadda ku celinaya inuu diyaariyaan hadda filahayaa nala daawada damaashaadkaasi 18 May oo dal iyo dibadba ka dhacay sidii uu dhacay iyo wariye Bosch soo dhawaad
Somaliland maanta waxay u dabaaldegtay sanad guurada 24aad ee ka soo wareegtay marka ay ku dhawaaqday madax bannaani ay kaga gooday Soomaaliya inteeda kale 18 bishii May ee sanadkii 1991 ciidamada kala duwan ee militariga Bileyska asluubta iyo kuwa badda ayaa gaardis ku maray jidka dheer ee bartamaha magaalada Hargeysa baabuurta gaashaamana ciidamada ayaa iyana qayb ka ahaa dabaaldega kumanaan ardayda jaamacadaha iyo dugsiyada ayana maray halkaasi munaasabadooyina lagu qabtay barxada hore xarunta madaxtooyada waxa ka qayb galay madaxweyne Ziilaanyo golayaasha baarlamaanka iyo axsaabta siyaasadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Ziilaanyo khudbad uu jeediyay oo qaadatay 16 daqiiqo ayaa waxa inteeda badan uu kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee Somaliland oo ka hadlayay muddo kordhinta muranka abuurtay ee loo sameeyay xukuumadda iyo golaha wakiilada waxa uu ku dooday inaanu doonaynin muddo kordhinta isla markaasina aanu faragelin ku sameeynin go'aanka uu qaatay aqalka duqeydu hase ahaatee ay ku timid duruuf jirta waxaana intaasi uu ku daray in xal loo raadinayo khilaafka taagan iyadoo wada hadal lala gelayo axsaabta mucaaradka kuma faraxsani inay doorashooyinka waqtigoodii dib uga dhaceen mana jecli hadda iyo hore toonna turturooyinka ku yimaada nidaamka dimuqraadiyadda waxaase dhacda in marka lagu jiro howl adag ay soo bixi karto duruufo wax ka bedeli kara qorshayaashii aad qoondaysatay guddida doorashooyinka qaranku waxa ay ii soo gudbiyeen 20 Abril 2015 qoraal ay ku cadaynayaan inay doorashadii xilligeedii ku qabsoomi karin anigoo ka duulaya saalada waxaan u gudbiyay golaha guurtida oo u xilsaaran awoodda sharcina u leh qiimaynta xaaladdan ma jiro wax faragelina oo ku lahaa go'aamada ka soo baxay aqalka guurtida waana haad u madax bannaan xilgudashadeeda anigoo ah madaxweyne qaranka madaxweyne ku-xigeenka iyo mas-uuliyiinta golaha wakiilada maanu ahayn kuwa maanta iyagu arrintaa ka talinayay go'aanka golaha guurtidu waa mid dastuuriya waxaan ku baaqnay kulan turxaan bixina oo aan isugu nimaadno 3 xisbiye qaran dhammaan dhinacyo arrintan khusayso muxaafid iyo mucaarad waxaan u soo jeedinayaa inaynu khilaafkeena ku dhammaysano wada hadal wada tashi iyo walaaltinimo iyo urfitoona umalihi inaan dabac kursi doon dalkaygu dumiyo xaasha maanta aniga oo cimrigaa jooga layga biqi maayo inaan dibindaabiyeeyo dalkan iyo dadkan dhimadooda saaran walabaad ragga uu gurigu ka hayo inay dalkan madax ka noqdaan waxaan leeyahay war damciina ku dara tudhaale iyo la jecelo oo waa la doonayay yaa la dhacaroon madaxweyne Ziilaanyo waxa uu sheegay in xukuumaddiisu ay doonayso xiriir wanaagsan oo ay la yeelato beesha caalamka gaar ahaan dalalka Somaliland ka taageeray geedi socodka dimuqraadiyadda hase ahaatee sida uu hadalka u dhigay waxaa jira warar xaqiiqda ka fog oo la gaarsiiyay beesha caalamka Somaliland waxay aaminsan tahay in xiriir wanaagsan iyo iskaashi xooggan ay la yeelato bulshada caalamka kaasoo ku dhisan isqadarin iyo dawadaad qaar ka mid ah wakiilada dawladaha inaga taageera doorashooyinka waxaa ka muuqda inuu gaadhay warar xaqiiqda ka fog kaasoo keenay inay walwal ka muujiyaan dib u dhaca yimid Ziilaanyo waxa uu ka digay ciidamada dawladda Soomaaliya ay dhisayso oo ku tilmaamay kuwa madaxda Soomaaliya ay ku doonayaan inay ku soo celiyaan midnimadii burburtay sanadkii 1991 sida uu sheegay waxaan ognahay in dawaanahan la wado hindise ciidamo lagu dhisayo Soomaaliya kaasoo dalal ka mid ah beesha caalamku ku garabsiinaya madaxda Soomaaliya ayaa iyaguna ku celceliya inay ciidamadeedu u abuurayaan soo celinta midnimadii Soomaaliya ee burburtay 1991 mahadsan tahay dabcan warbixinta yarta waxaa noo soo diyaariyay wariye Bosch Hargeysa
طبعا inkastoo maaragtay muuqaalo kalena aan idiin hayno haddii alla yiraahdo intaan ka gaari karnana aan idiin soo debin doono damaashaadyadii ku saabsan balse aan madasha dib ugu soo noqdo dadweynaha iyo dhawaanna waa siin doonaa haddii alla yiraahdo bogga facebooka iyo qadka taleefonkaba damaashaadka awgiis aad baan u siin doonaa caawa haddii alla yiraahdo laakiin aan madasha kusoo noqdo aan kusoo noqdo naasir adiga aan ku imaado naasir su-aashani waa su-aal aad in looga fiirsado u baahan dabcan aqoon-yahanadiinna waa u baahnaa inaan su-aalaha noocaan oo kale aan weydiiyo dabcan 18 May waxaa laga joogaa rubac qarni maanta waxaa loo dabaaldegay 24 guuradii kasoo wareegtay xilligaasi Somaliland gooni istaaga ay ku dhawaaqday haddii dadaalka gooni istaaga Somaliland uu hirgalo dabcan maalinta 18 May waxay noqon doontaa maalin inta Somaliland nooshahay loo sii dabaaldego laakiin hadda waxaa socda wada hadal haddii wada hadalkaasi si kale la isu fahmo taariikhdan 18 May waa maalin aad ugu weyn reer Somaliland dabcan dhalinyaradii markaas dhalatay ama da'da yarayd maantayto waxay ka qayb qaadanayaan doodaha Somaliland oo dad qaan gaar iyo haaf kor u dhaafay sidee marka arintan ayada maalinta 18 May maxay xushmad gaar ah loo siin karaa baad is leedahay haddii guuleysatay waa guuleysatay haddii guuleysan weydo oo wada hadallada socdo iyo si kale wax la isu fahmo maalinta 18 May maxaa laga yeeli doonaa horta maalinta 18 May waxaa laga yeeli doonaa haddaan si yar kuma soo sheego waa maalin xusuus weyn leh oo khaasatan dadka reer Somaliland u leh way markaan ka hadlayno noqoshadeeda oo dhinacan waxaan geeynaa labada dhinac siyaasadda markaa oo markaa way noqoshadan Somaliland iyo gudaha way ixtiraafeen dadkii waana isu kalsoonaadeen waana is aamineen marka taa iyagu noqoshtaas ma laha meel ay kaga noqonayaan tan kale hadda hadday noqoto aaminaadan kale ama systemkii doonayeen ay ku gaari waayeen hadafka ujeedadu tahay su-aashu waxa weeye maalin lagu xusuusanayo taariikh dhacday halgan dhacay meel ka dhacay sabab u dhacay xusuusta kooban taasay noqonaysaa inkastoo su-aasha ugu dambana uga jawaabin si tamdin uga jawaabi karaysa sida imkarasa la jecel yahay uga jawaabin marka haddii noqon weyday waa taariikhaha kale dhexgelaysa oo aan saa ugu masaxmayn ama aan sidaa lagu iloobin waayo waxaan lagu iloobin waa taariikh lagu galay xornimo doonnimo rubac qarni hadda soo taagnay rubac qarni soo taagnay damaashaadku soo socday marka rubac qarni haddii rubac qarni kale sii taagnaadana iyo in ka sii badanna waxaan filayaa dadka reer Somaliland inay diyaar u yihiin in damaashaadka ay sii wadaan iyada oo marka halkan ay taageen horta ku tali jiraan dib uga noqdaan in hore uga socdaan ku tali jiraan point hadafka meesha yaala waa kaa marka ilaa haddii rubac qarni dambe ama rubac qarni kale kasii dambeeya ama mid kasii dambeeya ay halkaas un ay taagnaadaan damaashaadka iyo xafladda iyo maamuuskeeda iyo karaamadeeda iyo miisaankeedu uu u soconaya Somaliland haddii ay helaan waxay doonayaan oo hiigsiga ah inay beesha caalamka ay ka mid noqdaan oo hadafka taargetkooda ugu weyn yahay kaa oo aan ahayn gasiiro jiro magacda ku taala oo caalamka ka maarmin caalamku waa ka mid ah caalamku waa la macaamila caalamku waa la dhigi karaa caalamku way u yimaadaan waa ka tagaan maaha weli laakiin hadafka laga ay lahaayeen inay qaran noqdaan madax bannaan way yihiin laakiin qaranka caalamada ku jira qaramada caalamka ku jira ka mid ah ama United Nations ka mid ah yihiin kaas kaga u dhiman weeyaan kana asbaab siyaasadeed oo aan Soomaaliya gudaheeda aan ahayn ee dibaddeeda ah ayay taallaa Somaliland waxa uu taala sidii uga doodi lahayd uga hargeli lahayd uga dagaalami lahayd ay ugu soo dhaxsan lahayd inay u cadayso beesha caalamka inay tahay qaraxmada bannaan oo caalamka beesha caalamka doonaysa ka mid noqoto aad baa master beesha su'aashan waa muhiim taariikhda aruurisa dabcan inaad fahamtana waa filahayaa ama aad markaan weydiinaya aad fahamto kusoo dhow 18 May waa maalinta aynu arkayno saameynta ay ku leedahay siyaasadda iyo adduun arag iyo si aragga dadka reer Somaliland 24 sanadood ay taagneed ay jirtay dadkii dhashay baa imika waalida oo qaangaara oo hana qaaday oo reerale si kasta u dhacdaba waa maguurto kamida taariikhda dahabiga ah ee ummaddu ay leedahay dhigaaladeeda ayay la guurguuraysaa oo raacaysaa oo aanay ka hadhi doonin inta
dunidu uuman tahay haddii la xaqiijiyo himiladeeda iyo haddii ay xagalka daacdaba labadaba waa maguurto xididadeedu dhulka turqadeen oo aan ka hadhi doonin sooyaalka iyo taariikhda ummadda aad baa umahadsantahay dabcan dadweynaha ayaan qadka siin doonaa haddii la yidhahdo waxaan idinka codsanayaa qadka markaad soo galaysaan inaad iska gaabisaan tv-ga hortiina ama aaladda aad ka daawanaysaan si aan waqtiga isaga dhumin oo may maqashaa iyo halow aan ugu wareerin laakiin inta dadweynaha la gaarahayo bogga facebooka dareenka shacabka iyo siyaasiga oo ku qoran shaashada hortiina dadweyne aad u fara badan baa kasoo dhiibto reer somalilan qodobkan aan maanta ka hadlayno dabcan aan ku bilaabo qofka ugu horeeya wuxuu leeyahay magacaygu waa cabdiqani baaste dabcan wuxuu leeyahay ingiriis buu kusoo qoray somalilan xorriyadda waa la soo noqotay baa marka loo turjumayo noqonaysa dabcan aan kasii gudbo maxamed idris camaash wuxuu leeyahay 18 May ayaan u codeeyay magacaygu waa maxamed idris cilmi waxaan deganahay Scandinavianka waxaan soo jeedin lahaa soo jeedaa waxaan ka soo jeedaa buu yiri jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan gobolka Awdal su'aashaydu waxa weeyaan buu leeyahay reer Boorame ma diidana maalinta qarannimada ee waxay rabaan cadaalad iyo dad dhageysta shacabka waxaana la rabaa cidii dhageysan lahayd ummadda reer Somaliland FIFA jamhuuriyadda Somaliland ayuu ku soo gabagabay dabcan aan ku sii socdo cali cabdi diiriye wariye duraan waa ku salaamay waa ka qaaday marka hore waan ku salaamay aniga iyo martida barnaamijkaba waa idin salaamayaa waanu ka qaadnay asoo barnaamijka si wata oo hoos u sii guda galay wuxuu leeyahay waxaan joogaa dalka Holland haddii aan ku hadlo su'aasha 18 May 26 June keebaa muhiimsan dadka Somaliland jawaabtu waa 18 May waayo waa maalin dadka reer Somaliland ay dib u helaan xornimadooda ka luntay ee ay dib ula soo noqdeen qarannimadooda 18 May buu ku leeyahay kumay iman sidii 26 June oo kale waxaana loo maray halgan hubaysan oo naf iyo maalba loo horay kumanaan geesi ayaa u shahiiday kumanaan hooyo ayaa ku gablamay kumanaan gaari ayaa asay ku qaaday kumanaan caruura ayaa ku hungoobay waxa kale oo 18 May kaga duwan tahay 26 June gumaysiga Ingiriisku muu samaynin inay diyaaradii Hargeysa ka kacdo oo haddana Hargeysa iyo Burco iyo Berbera ay dib u duqeyso waana taa waxyaabaha 18 May aan marka loola simi karin 26 June وايا فيصل وحير مقعي وفيصل محمود واد mahadsantihiin هون كيبل تي في شقاليhiisa kulligiin buu leeyahay annaguna waa ka qaadnay wax kalena kuma soo darin waana ku salaanaa annaguna aan ku gudbo mawlud Muuse Dacar oo magacay waa mawlud Muuse Dacar Ismaan Carro oo ku nool caasimadda Somaliland Hargeysa 18 May iyo 26 June waa laba maalmood oo qarannimada Somaliland ku qaaliya 18 May waxay ku suntan tahay maalintii cadceed cusub u soo baxday dadka reer Somaliland ayuu leeyahay dabcan oo ahayd dibna u soo noqotay tii hore dheeliday qarannimadoodii markii 18 May ayaa nagu qaalisan buu leeyahay 18 May ayaa nagu qaalisan 41 sano oo midowgii aan galnay abid nama soo marin buu leeyahay xagga diyaar garow dal iyo dibadba waxaa looga diyaar garoobayaa si heer caalami ah markaan suuqyada maraba waxay indhahaygu qabtaan buu leeyahay waa calanka quruxda badan ee leh dhagahaagu waxay maqlaan heesaha maalinta u gaarka may waa bishii muran reebtay buu leeyahay bisha May aan ku sii socdaan qadka telefoonka oo imaan doona hadii la yiraahdo magacaygu waa cali aadan tarabi buu yiri oo jooga wadanka Germany magaalada Munich aan joogaa buu leeyahay waxaan qabaa 18 May inay ka mudan tahay 26 June waayo waa maalin si gaar ah salka ugu haysa astaanta qaranka jamhuuriyadda Somaliland laakiin waxaad moodaa inay dad badan aanay garanayn sida loo xuso munaasabaddan sidoo kale dabcan aan ku sii socdo wuxuu leeyahay magacaygu waa Sultan Colaad magacaygu waa Mustafa Colaad oo jooga caasimadda Hargeysa waxaan oran lahaa buu yiri duraan iyo asxaabta please raxan weyntu ha ka arkaan dabaldega 18 May please laakiin qof qashuush leh yaanu no iman butaagan aan damaashaadno raxan aan u socon وايا qadka telefoonka aan dib u fiirinayaa hadii uu ku jiro fadlan waxaan idin ka codsanayaa qadka telefoonka markaad soo galeysaan inaad aaladda hortiina iska gaabisaan si aan si fiican isugu maqalno si aan turxaan lahayna aad barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga ula hadashaan qofka ugu horeeya waa soo dhaweynaya caaw halo ma maqashaa halo 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 ma maqashaa طبعا قد كفرسمada intuu soo gaarayo bogga Facebook ayaan si akhrin doonaa hadii alla yiraahdo halo ma maqashaa halo
Hello, السلام عليكم. calaykum asalaam magacaagii meesha ka soo hadlaysa dareenka ku hadda barnaamijka haddii aad la socoto adoo raalliya waa magacayga hodan baleeyaa channelkan ka soo hadlayaa waan idin salaamayaa adiga iyo asxaabta kula jooga hodan soo dhawow maxaa ku daraysaa barnaamijka waxaan ku darayaa waan u hambaleynayaa Somaliland 18 May ilaahayna waan ugu mahadnaqayaa inuu nabadgeliyo ay ku dhamaatay marka waan u hambaleynayaa aad iyo aad baan ugu hambaleynayaa ictiraafka walaalaad aad mar walba ku soo celcelinaysa ilaahay baa wax ictiraafa waa ka ilaahay ictiraafku dadkan dunida caalamka aad leedahay ictiraaf baa laga raadinayaana waxba nagalama maqna annaga is ictiraafnay waxba ay nagala maqan yihiin shar bay nagala maqan yihiin aad baa umahadsantaha hodan horaana ugu sheegay su-aashii ku jirtay dadku markuu asagu istiraafo oo isku kalsoon yahay waa midda ugu weyn ee kalsoonida dhalisa dabcan horena waan u sheegay dabcan su-aasheedii bay ku jirtay ictiraafka adduunkana dee dabcan asaga laftigiisa meesha kama maqna waayahay qadka xigaan soo dhaweynaya halo ma maqshaa halo halo asalaamu calaykum وعليكم السلام soo dhawow magacaagii meesha ka soo hadlay dareenka ku hadda barnaamijka haddii aad la socoto adoo raalli waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed reer Somaliland soo dhawow waxaan ka soo hadlayaa magaalada Oslo haye marka hore waxaan salaamayaa labada nin ee siyaasiga iyo Duraanba waan salaamayaa soo dhawow marka xigtana waxaan leeyahay hambalyo Somaliland halkay meel kasta joogaanba waxaan weydiinayaa inanka baasha leeyahay baasha maaha baasha maxamed baasha maxamed baasha waxaan weydiinayaa laba markii xornimada 60kii la wareejiyay maxay ahayd oo la isku darsaday Soomaaliya labada nin diiday ee mid Michael Maryam ahaa ninka kale waxaan sidan taariikhda ku hayay wuxuu ahaa ina cigaal waayo umul baa la 40 saaraya wuxuu yidhi waxaa la 40 sabta ilmaheeda 40 saarta ee aynu 40 saara calankeena anigu taariikhda saasaan maqlay markaa baashaa ku celin doonaan su-aashaa weydiinaya baasha waa fahantaa malayna su-aasha gabadha reer Somaliland ku si wanaagsan waayahay aad baa umahadsan tahay wuuna kaaga jawaabi doonaa haddii alla yidhaahdo qadka xiga ayaan fiirinayaa caawa oo damaashaadkii 18 May dabcan reer Somaliland adduunka oo dhan bay ka damaashaadeen meel kastoo dunida guudkeeda dabcan damaashaadka barnaamijka dareenka shacabkana wuu la qaybsanayaa hambalyo ayaanu leeyahay dabcan qofka ku xigaan soo dhaweynaya halo ma maqshaa halo halo asalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة soo dhawow walaale magacaaga meesha ka soo hadlaysa dareenka ku hadda barnaamijka adoo raalli waxaan ka soo hadlayaa Stockholm magacaaga Abduqaadir Xaaji Abduqaadir soo dhawow Abduqaadir soo dhawow maxaa barnaamij ku daraysaa walaal waxaan rabaa inaan u sheego kaliya horta aad baan ugu faraxsanahay waan u hambalyeeynaya laakiin waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo walaal oo ah koonfurtii waqooyiga markay israacayeen walaal de koonfurta ingiriisku wuxuu ka baxay bishii afraad ee kontonkii ma garatay walaale marka waxaan inaan baasho weydiiyo dee wadahadalaa jiray dee walaale maxaa jiray wadahadalaa jiray koonfurtii waqooyiga horey u socday marka su-aal baan ka weydiin lahayn marka soo dhawow waa ku tuuri kartaa xor baa u tahay waa weydiin kartaa soo dhawow maxaa ka weydiinaysaa waa ku jirtaa baash waa fahantaa malanaa su-aashaas waa fahantay laba su-aalood baa ku yaala dabcan aad baa umahadsan tahay cabdiqaadir su-aashaadaasna baasha waa kaaga jawaabay haddii aan la yidhaahdo qadka xiga ayaan fiirinaya hadday suuragal tahay qadka xiga halo may maqshaa halo halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله دران soo dhawow walaal magacaaga meesha ka soo hadlay dareenka ku hadda barnaamijka adoo raalli سودا لا يلا ولا sawda soo dhawow sawda maxaa ku daraysaa barnaamijka sawda وان دوهاي ولا وان سلام يا adiga iyo marti sharafta meesha fadhida salaan qaali aan idin soo diraya hase waxaan ku sheegayaa de walaala Somaliland uma baahna maxaan ku dhahay madax banaaniba uma baahna ilaahay baba aqoonsadayba waa dawlad caama waa ma sha Allah nabad iyo barwaaqo bashash baa ka jirta wadada wanaagsan oo niyad iyo kaliya laab isu hayo oo hagaagsan oo nabadgeliyo saxta marka xaqiiqada dhabta laga hadlo wadamo badan oo Ingiriiska imka aqoonsaday baa jira
cid walba aqoonsan damaashaadkii waaya aad baa umahadsan tahay sawda damaashaadkii xagee ku qaadataa adigu maxaa tiri damaashaadkii 18 May xagee baad ku qaadatay damaashaadkii waxaan ku qaatay maxaan ku dhahdaa gurigayga dhexdiisa caruurtayda iyo ilmahaygaan waday niyadiyo maxaan ku dhahdaa niyadiyo cirdigaan maxaan ku dhahdaa ka taageerayaa dee waa meel lagu soo naaloonayo Soomaali oo dhan imika maxaan ku dhahdaa soo anqaltaagayso maasha Allah Soomaaliyana Ilaahay waxaan uga rajaynayaa nabadgelyo taas oo kale in Ilaahay ku soo dabaalo hagaagto amiin amiin aad baa umahadsan tahay sawda aad baa umahadsan tahay waan ka mahadcelinaa maxaan ku dhahdaa Somaliland hore hawsi socotaan leeyahay maasha Allah waana salaamaya Somaliland oo dhan iyo Soomaali oo dhan sawda waa mahadsan tahay sida barnaamijka uga qayb qaateen oo ka mahadcelinaa aad baa umahadsan tahay qofka ugu dambeeya ayaan fiirinayaa haddii alla yiraahdo barnaamijku waa barnaamijka dareenka shacabka waana damaashaadkii 18 May oo adduunka oo dhan laga qabtay waa soo dhaweynaya qofka ku xiga halo may maqashaa halo السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو magacaaga meesha ka soo tahay dareenka ku barnaamij waa magacayga waxa la yiraahdaa Saad Ali Yusuf waxaan ka soo hadlayaa magaalada London Saad sodhow Saad halo Saad wala waxaan ku horta waxaan salaamayaa adiga Duraan iyo waxaan salaamayaa labada aqoon-yahan ee Soomaaliland oo afadhiya تيفي قرطة اسكا سعاد هذا رالي فضل جلس قد كتلافنك because waa igu soo noqonaysaa raalaha haye bas kadan soo iska gaab tv ma maqashay maka hawa ku maqlaa hadda soo dhaw marka waxaan labada aqoon-yahan waxa weydiin lahaa ama horta 18 May waxa weeyaan maalin aad iyo aad u noogu qaali ah 18 May waxay haysataa 1800,000 man bay haqaya qabtaa marka 18 May maalin nagu qiimo badan weeyaan marka waxa laga hadli karay maha ilaa caruur farxadan ku wada dhicina maanta talabaad waxa weydiinaya aan xadan xasuusanaya nimanka aqoonyahanada Soomaaliya afkaaga fadhiya way inay carabka ka daayaan markastaba qadiyada Soomaaliland ama ictiraafka Soomaaliland wuxuu ku xidhay Soomaaliya taas waa aan weeyaan qadiyada iyo ictiraafkeega Soomaaliya kuma xidhna Soomaaliyada kala dhaadheer marka anaga inoo baahan anaga naga bateen markay dagi waayeen xitaa anaga naga bateen xaqiiqada marka leego anaga naga bateen dawlad wanaag oo maalinba bid naga baranayaan Su'aad aad baa umahadsantahay waan ka mahadcelinaa barnaamijka Su'aad kama hadlayno Soomaaliya iyo Somaliland ma ka hadlayno raalla ahaanaysa ma ka hadlaynaa damaashaadka Somaliland waxaan ku sheegay ku dhigin waayo ku soo koob adoo raalle ma ka hadli maayo hay soo dhow Su'aad ma maqashaa waan soo koobaya laakiin waxaan xasuusinayaa kulma ummadda reer Soomaaliya waxaan xasuusinayaa inay niyadda geliyaan inay سؤال هذا ما ستهاي تفي أنا كوما مقلو قد كنا واحميها في الهيا برنامجك قد كأن قصة النقطة مدرسة قصة النقطة هي برنامجك باش طبعا لما سؤالات باكو تعالى لما سؤالات ضد سوق بدر عليه waayahay su-aasha ugu horeysay waxayna weydiisay hooyo Somaliland oo ka hadlaysay magaalada Oslo ee xarunta wadanka Norway runtii waxa ay ka tibaax bixisay in Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal uu kamid ahaa dadkii diidanaa ama hogaamiyayaashii diidanaa midnimada Soomaalida ama doonayay in la baxnaaniyo hadaynu si wacan hadalka u dhigno cid diidanayd ma jirin oo dhami waa la wada doonayay laakiin dadka qaar baa lahaa yaan lagu degdegin waa laga yaabaa sida ay hooyadu sheegayso in Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal yiri aan todoba baxno laakiin anigu kulliba baaritaankii aan sameeyay taariikhiga ah lamaan kulmin aniga oo tan aan soo qaaday Michael Maryama iyo Garaad iyo Cali Garaad jaamac labadaba iskamaan oranay qoraal baan ku hayaa rasmiya oo yaala Public Records Office of London halka xogta lagu kaydiyo taariikhda ummadaha ayaa faylal yaala ama galal yaala ayaan ka akhriyay oo wala galkaas oo magaciisa la yiraahdo Union of Somaliland and Somalia 1960kii
midowgii Soomaaliya waa faylka ama galka la yiraahdo midowgii Soomaaliya iyo Somaliland ee 1960kii faylkaas waxaa ku qoran minidkii ay la qaaday ee ay yeesheen 33kii xildhibaan iyo 4tii wasiir ee Somaliland ugu horeeyay ee la doortay bishii February 1960kii kulankaas oo ay yeesheen bishii April 1960kii waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyihii xukumayay Somaliland ee Ingiriiska wakiilka uga ahaa Sir Douglas Hall iyo xogayihii guud oo isna ahaa markaasi Philip Carroll ninkii la oran jiray isagu minidka qaadayay minidkaasi waxaa ku qoran taariikh aad u fara badan oo ay ka mid yihiin kuwan aan halkan sheegay uu leeyahay Michael Maryama oo NUF ahaa wuxuu u ololeynayay xilligii uu doorashada gelayay oo uu lahaa 10 sano yaan midnimadu dhicinay aan isa sugno oo isa soo gaadhno oo maamulka barano wuxuu ahaa nin ka horeeyay dadkii markaa halkaa joogay ee halgamayay oo wuxuu ka soo shaqeeyay intii Soomaalidu markaasi ay ka koobnayd marka Djibouti laga reebo xilligii dagaalkii labaad ee adduunka wuxuu ka soo shaqeeyay Muqdisho xilligii Ingiriisku qabsaday wuxuu ka soo shaqeeyay Kenya wuxuu ka soo shaqeeyay Jigjiga oo xarun u ahayd maxay tahay Hawd and Reserve Area iyo Somaliland marka waxa uu qabay oo political programkiisii ku jiray inaan 10 sanadood la is sugo garaadna Ali garaad jaamacna saasi leegisna waxa faylkaasi ku yaala inuu yiri oo ay ku dagaal galayeen isaga iyo Xaaji Ibrahim Nuur oo xisbiga USB madax ka ahaa 6 bilood hal layna siiyo oo aynu isdhisno Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal waxa uu ahaa hormuudkii SNL waa xisbigii ugu weynaa doorashada ku guuleystay waxaana programkiisa iyo siyaasaddiisa ku salaysnayd in la isku xiro xornimada iyo midnimada oo aan la kala qaadin oo maalinta Somaliland xorowdo la sugo in 26 July iyo koonfur midnimadeeda taasay wadeen oo faylka ku yaala taariikhduna xusaysa laga sayaabay in Maxamed Ibrahim Cigaal meel fagaara ah ama meel caadi ka yiri aan toddoba baxnayo wax lamid waa suurtagal oo anigu taajeeday fayn maayo laakiin taariikhda sugan ee xogta ehel haddii maanta lagu murmo la keeni karaan hayaa waa taa aan carabka ku dhuftay su'aasha labaad ee Cabdilqaadir ku saabsan wadahadallo u socday Soomaaliya iyo Somaliland xilligii 1950kii baa Talyaaniga markii dagaalkii labaad socday waa la qabsaday Ingiriisku wuxuu qabsaday koonfurta Soomaaliya shantii Soomaaliyeed marka laga reebo Djibouti waxay soo gashay gacanta Ingiriiska muddadii dagaalku socday iyo in yar kadib soo kafada marka wadahadallada iyaga ahi oo ku saabsan midnimo dadku way wada xiriirayeen oo waa la wada hadlayay meel baa loo wada socday laakiin wadahadallo ku saabsan dawlad aan dhisano iyo sidee baan u dhisanaa iyo maxaynu wada yeelanaa iyo maxaynu kala yeelanaa kuma haya anigu baaritaanka taariikheed ee aan sameeyay aad baa maasta hal daqiiqo iyo xoogaa baad haysataa dardaarankaaga ugu dambeeya waxyaabaha ku soo kordhay Somaliland waxaad kula daarmaysaa xildhibaanada madaxda sare ee Somaliland shacabka Somaliland xisbiyada soo dhaw adoo raalli tan aniga marka hore soo hormariyay sanad guurada 2015 waxay kaga duwan tahay kuwii hore saddex qodob baan soo dul istaagay markii hore oo ahayd in dardaarankaaga hadda rabnaa dardaarankan sheegay adoo raalli dardaarankan waxaan kusoo wadaa macnaheedu ka bilaabay weyn dardaaranka moogta dardaaranka waxaan ka bilaabayaa doorashooyinkan ka bilaabaya marka hore ee dhacday ee imka guurtu kordhisay waxaan jeclahay in halkeeda lagu adkaysto lagu diisto oo taas waxyaalo badan oo aan runtii meesha aan oolin ayay naga horjoogstay qabatay talabaad aan ku daray waxa weeye saddex xisbi qaran madaxweynuhu waxaad khudbadii dambaysa ku jirtay ahayd in uu fidiyo gogol tarbixina taana waxaan kula talin lahaa inay gogosha saddex xisbi ay ka qayb galaan oo raacaan oo qodobka labaad taasdaa wata beesha caalamka iyo Somaliland waxa ka dhaxeeya cooperation wax la yiraahdo ama iskaashi waxa ka dhaxeeya wax la yiraahdo consultation ama wada tashi waxa muddo inta dambeeyay soo dhaxgashay wax la yiraahdo persuasion ama ku maslaxada ama dhaxgelina taa waxaan doonayaa hadaba Somaliland sidii hore ula macaamiishay beesha caalamka ila macaamisho beesha caalamka sidii hore ula macaamiishay Somaliland ila macaamisho ta kale waxa weeye beesha caalamka iyo shacabka Somaliland waxay ka midaysan yihiin saddexdood waa beesha caalamka iyo shacabka iyo Somaliland waxay ka midaysan yihiin saddex hal shay oo ah
in ay doorasho xor iyo xalaal waddanka ka dhacdo in ay ku qalalaase iyo fadqallo iyo amaan darro gobolka iyo mantaqada kala gelisaanaan ka dhicin aad baa maasta baash hal daqiiqa haystaa dardaaranka ugu dambeeya waxyaabahan soo kordhay aniga dardaarankayga ugu dambeeya waxa uu ku waajahan yahay Soomaaliya oo dhan waxaan leeyahay anigu waan caawa halkan jecelahay in la igala wadaago intay daawanaysa afka Soomaaliga ku hadashaa meel kasta ay joogtaba afkaartii aynu wada lahayn ee Soomaali weyn way dhimatay luxudka ayay jiifsatay inaynu ka dul calaacalan maahay waxaa loo baahan yahay inaynu la nimaadno si kale oo aynu u badbaadno oo aynu u ilaashano inta inaga dhaxaysa ee aan laga maarmahaynin ee afka ah ee isirka ah ee dhulka iyo dhaqanka iyo dhaqaalaha ah ee diinta ah si aynu taa aanay inooga lumin aynu isu aqoonsano isku ixtiraamno inaynu kala yeelano soohdin dawladeed hayb siyaasadeed iyo habraac maamul oo kala duwan oo aynu isku ixtiraamno oo aynu isku aqoonsano sida Djibouti Somaliland Soomaaliya ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia iyo ismaamulka Soomaalida ee Kenya oo aynu majlisyada caalamiga ah iyo kuwa gobolka ah iyo kuwa qaaradda ah soo wada fariisano inaga oo shana oo is-og oo wada socona oo wax isla ogol oo wax wada ilaashanaya waxna kala leh oo isku ixtiraamaya oo isku qadarinaya taasaan u arkaa xalka Soomaalidu maanta ay u baahan tahay afkaarta cusub iguma koobna waxa ila qaba dad badan oo aqoon-yahan ah oo afarta ama shanta Soomaalidu digtaba ka soo kala jeeda wala maxasantii aad baa maasta barnaamijka intaan soo gabagabayn Cabdiqaadir Wadani oo ku nool magaalada haddana Hargeysa joogay asxaab badan waxay hambalyo u soo dirayaan 18 May ayagoo Hargeysa jooga waxayna leeyihiin hambalyo reer Somaliland waa maalintan tanaadnay waa maalintan dib u soo noqonay gobonnimadeennii ayuu leeyahay hambalyo ayuu leeyahay Cabdiqaadir Wadani saaxiib adna waa ku salaamay way barnaamijka waxa igala qayb qaatay Naasir Maxamed Qaalib oo Naasir Axmed Qaalib oo kamid ah jaaliyada reer Somaliland ee ku nool magaalada Bristol dhankayga kale waxa fadhiya Maxamed Baasha Xaaji Xasan oo ah taariikh baare reer Somaliland kuna nool magaalada London waxaan idin mahad celinayaa intii nabadda Facebook barnaamij soo qaabtay aad buu fara badan yahay gabigiin ma soo wada gudbin karno waad ka raali garaynayna intii qadka telefoonka nagala soo qayb qaatay barnaamijka waa mahad celinayna dadweynaha sharafta leh barnaamijka daawanaya sidoo kale waa mahad celinayna injineerada barnaamijka caawa oo kala harin sida injineer Cadnaan iyo Tariq waan idin mahad celinayna dhammaanteen anagoo isku duuban intaan barnaamijka mid lamada ku kulmi doono intaan dib dambe wada hadlayno ama barnaamijkan kale aan soo kulmi doono waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo wayga conflict resolution lagu xalliyo saas maaha waa xal waa lagama maarmaan odayaashu waa muhiim waa sector aan la inkiri karin Soomaaliyeed aeroportkii Muqdisho baan gacanta loogu jirin oo shirkada cadaan ay haystaan labaadan hirgelinteeda aan ku jeclaan lahaa waxay tahay in la soo dedejiyo intaan dastuurka la ansixin ka hor baarlamaanka oo ayagu ay ka doodaan oo ayagu ay qodobeeyaan oo ayagu ay